السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعند وديال صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogta wararka ee aad hadahan oo kala aad ka daawataan telefishinka Galmudug xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho hadii uu rabbi yiraahdo barnaamijka waxaan la socodsiin doonaa anigoo ah Cabdulle Bilaa Cabdullaahi soo saarista Cabdulqaadir Maxamed Silfar kaamiradu waa saaxiibkay Faysal Xaaji hadii uu rabbi yiraahdo qodobada aan ku soo qadan doono daawadayaal idinku aad kaga bogan doontaan waxa qayb ka noqonaya taliska ciidamada daraawista Galmudug ayaa maanta dowlatus ciidan ku sameeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug faahfaahin la xiriirtay daawadayaal hadii uu rabbi yiraahdo barnaamijka kaga bogan doontaan inta aad daawaneysaan qodobada kale ee daawadayaal saaxiibayaal barnaamijka aad kaga bogan doontaan waxa qayb ka noqonaya kulan lagu taageerayo go'aankii uu wakaaladii kala laabtay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sidoo kale daawadayaal inta aad barnaamijka xogta wararka ee Galmudug TV aad daawaneysaan waxaan ku soo qaadan doonaa hadii uu rabbi yiraahdo odayaasha iyo waxgaradka degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa dhaliil u jeediyay dowladda Soomaaliya qaabka ay wajahayso dhismaha dowlad goboleedka Galmudug odayaasha oo markaas la hadlay warbaahinta degmada Caabudwaaqna ku sugan ayaan saaxiibayaal daawan doontaan hadii uu rabbi yiraahdo qodobada kale aan barnaamijka ku soo qaadan doono idinku aad kaga bogan doontaan hadii uu rabbi yiraahdo daawadayaal waxa qayb ka noqonaya wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay guddigii loo xil saaray maxaabiistii ka baxsay xabsiga dhexe ee Xamar qodobada kale ee daawadayaal barnaamijka aan ku soo qaadan doono idinku aad kaga bogan doontaan waxa qayb ka noqonaya xeeryaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ayaa booqasho ku tagay deegaano ka tirsan degmada Buulabardi halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada macawisleyda barnaamijka ayaan saaxiibayaal ku soo qaadan doonaa qodobo markaas la xiriira hadal jeedintii ay warbaahinta kula hadleen qodobka ugu dambeeya hadii uu rabbi yiraahdo wadayaal barnaamijka aan ku soo qaadan doono idinku aad kaga bogan doontaan waxa qayb ka noqonaya maxay tahay caqabada ka hortaagan in dowladda Soomaaliya ay soo bandhigto wadankii ay sheegtay inuu ku lug lahaa qarxii dhawaan ka dhacay ex control afgooye barnaamijka ayaan ku soo qadan doonaa hadii uu rabbi yiraahdo qodobadaas oo faahfaahsanaya saaxiibayaal barnaamijka ku soo qadan doonaa idinku aad kaga bogan doontaan barnaamijka waxa soo saaray Maxamed Cabdulqaadir Silfar anigoo ah Cabdulle Bilaa Cabdullaahi ya saaxiibayaal barnaamijka idin tabin doona idinku aad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada barnaamijka ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan وهاجاك داود صاحبيال waxaad la socotaan barnaamijka xogta wararka ee Galmudug TV oo si toos ah haatan idinkaga imaanaya studio ku leeyahay magaalada Muqdisho anigu Cabdulle Bilaa Cabdullaahi markaana waxaan eegi doonaa qodobadii aad hordhac ku maqasheen oo faahfaahsan taliska ciidamada daraawista ee Galmudug ayaa maanta dowlatus ciidan ku sameeyay ama ku soo bandhigay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug hogaanka ciidanka ayaa warbaahinta kula hadlay duleedka magaalada Gaalkacyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa saxaafadda iyo ciidamada daraawista iyo maamulka kulli waan salaamayaa afrikan iyo boolkan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam bacdigeed ciidankan maanta wuxuu meeshaan isugu yimid gubtada koobaad ee daraawista weeye maalin guur baa la yiraahdaa kulley wax dhan baad wax ka duubteen ama meelo xun isugu timaadeen gubtada maalin guur ciidamada daraawista meelay joogaan ma waxaan leeyahay horta istaan bay hagaleen meelay joogaan ba haday calaada jiraan haday musamareeb jiraan haday gaalxay joogaan haday abarwaaqa jiraan roob baa la sheegay waxaan leeyahay meelay joogaan ba heegan hagaleen intaas waxaan raacinayaa ciidamada halka dhooban iyo kuwa maqanba dawladdu way ka warqabtaa gobolka Mudug wax loo qabtay iyo hal ciidana oo laga qoray iyo hal ciidan oo darajo laga siiyay ma jiro tuulooyin cidlaana kun baa laga qoray ciidanka halkaan jooga madaxweynaha hadda jooga iyo midka imaan doona kulli way difaaci doonaan mid loo caga jugleyn karaa ma jiro gobolka Mudug sidii dawladdu u dhalatay hal askari oo laga mushaariyay dawladdu ma sheegi karto hadday marka dawladdu sakaya in tuurtay annaguna waa iska indha tuurayna ha ogaad haddii kale dawladdu ha u timaado ciidankaana maalgeliso darajaday leeyihiin ha siiso mushaarkay leeyihiin ha siiso waxaana faralba ku ah madaxweyne mid la soo doortay mid hadda jooga inay difaaci doonaan cagaar loogu imaan jiri karin waa gubtadii koobaad meelay joogaanbana waa salaamayaa kuwa kalena istaan bay hagaleen waxaan inii sheegayaa marka maamulka leeyahay dhuusamareeb baa laga dhisay baawir sheer baan ku qaybsanaa anigu maamulka waxaan ogaa anigoo Mudug madaxweynaha iskale ceelbuur uu iska leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka
caabud waqayleedahay madaxweyne ku-xigeenka cadaada baarlamaanka farmaajo loogu sarreeyaa u saxiixay wax ka sokeeyo ma ogolin haddeerana laga mudugna madaxweynena lama tartami karo waa in inta la isku yimaado heshiis damba la galaa haddii kale midka musharaxa laga hari doono haddii la hayno waxaan marka inku salaamahayaa ciidankana aan leeyahay istaanbay gala madaxweynaha midka la soo dooran doono iyo midka joogada difaaca dawladdana waa dhowraynaa annagu dawladda yacni cayrsan mayno waan dhowraynaa hab dhaqankay ku dhaqantaan kula dhaqmaynaa hadday dawladdu inta noo timaadana qaadata annaga iyo dawladdeeda iyo maamulkeeda iyo ciidankana waa raacayna hadday diidana meesheeday naga joogaysa waxbaan naga afar cabdibilo waxaan maqlayay 22aad baa la soo diray 22aad baa suuqa ay darsanta waa kala soocanayna waxaan taliyaha qaybta ahayn waa soo soocana kaligiis baaray taliyaha qaybta waa haddii shidda la wada weeyo waan kala soocanaynaa qolo dad gaara leh ma jidho qolo dad gaara leh ma jidho wax walba waa isku darsanay intaas anigu inaan ka sii badiyana ma rabo iyo dulmi kale inaan sii galo ciidankana waxaan leeyahay meelaad joogtaan baheegan ahaada dalkiinana difaaca madaxdiinana difaaca mid imaan doona iyo mid muxuu ahay sheegay yani hadda taaganba kulli xoreey oo difaaca kulan lagu taageerayo go'aankii oo wakaaladii kala noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug qaar kamid ah dadkii kulankaasi ka qayb qaatay ayaa warbaahinta la hadlay dadka hadda halkaan isugu yimid oo reer Mudug waxaan leenahay annagu waxaan ka hadlaynaa arrimaha maanta ay jira waddanka dalka ka jira oo sida dawladda federaalka ay maaragtay Galmudug u caburinayso oo ay dadka u caburinayso waxaan doonaynaa in dawladda federaalka ay Galmudug dhismaheeda ay faraha kala baxdo oo beelaha Galmudug ka magacaaban ay qaybsadaan ay iyagu ay u madax bannaan yihiin warkooda si ayagu ay wax u qaybsadaan oo say wax u kala leeyihiin ay u qaataan waxaan rabnaa dawladda federaalka inay kala dhex baxdo qaska ay kula jidho oo odayaashii saxiixayaalka ahaa laga gudbahayo kuwa kala la qoranhayo oo waxaan doonaynaa inay maaragtay Mudug iyo Galgaduud baan annagu nahay Galmudug waxaa muuqata Galmudug sida loo sheegay meeshii laga aasaasay Gaalkacyo ahayd dadku waxba la isku darsaday waxaan waayahan maqlaynaa 2015 cadaado markii Galmudug la isugu keenay iyo sida xibin iyo xeeb markii dadku wax isku darsaday oo Mudug iyo Galgaduud wax la isugu darsaday inay Galmudug baynay markaas ahayd in laga dhigay baa muuqata ma ahan Galmudug waa laga warqabaa 2006 baa la dhisay adduunka oo dhan baa lagu ogyahay wax la ogyahay weeye dadkuna Mudug iyo Galgaduud bay ka kooban tahay oo Galmudug saasay ku tahay waxaan rabnaa oo adduunkan ka codsanaynaa dawladda federaalka ah inay gacanta kala baxdo qaska iyo dhibka ay kula jidha Galmudug sida aad ogtihiin madaxweyne Axmed Geelle Ducaale Xaaf hadda wuxuu inuu badbaadiyo ugu soo laabtay awal dawladda ugu wareejiyay oo markay wax ka qaban weyday oo ay ku fashilantay wixii loo xirsaartay hadda wuxuu ku soo laabtay inuu Galmudug badbaadiyo ilaahina waxaan ka rajaynaynaa inay saas ku badbaado dawladdana waxaan leenahay kor joogto ka noqda annagu waa dawladdeedii ma mucaaradayno laakiin waxaan codsanaynaa inay kala faraha kala baxdo Galmudug ka bacdi meeshaan waxaan iskugu soo taagay anigoo ka mid ah odayaasha dhaqanka wax dhaliila oo ka muuqday oo aan ka muujinayno inaan ka hadalno wax alla wixii cabashaana wax alla wixii ay ka cabanayaan dadweynahaas faraha badan oo kumaankumka gaarahaya waxa ay ka cabanayaan tabashadeeda inaan ka muujinno waxa ka jira iyo waxa ay ka cabanayaan kow waxay ka cabanayaan doorkii Galmudug gobolka Mudug uu ku lahaa oo ay kala yihiin oo ay ka waayeen oo doorashada iyo awood qaybsigii labada gobol oo gobolka Mudug iyo gobolka Galgaduud ahaa
galgaduud waxba looma diidana wixii ay leeyihiin bay leeyihiin laakiin wixii mudug ay lahayd baa lala yahay ayadaa dadkaani ka cabanhaya waxaan leenahay gobolka mudug wixii uu lahaa waa in la helaa haddaan gobolka mudug wixii uu lahaa uusan helin waxaa imaan doonta waxa aan hadda taagnayn oo aysan ku shaqayn doonin galmudug waayo galmudug haddii ay gobol ku shaqaynayso meeshii laga asaasay galmudug halkan bay ahayd waxa galgaduud waxa loo gaarsiiyana inaysan gobol uusan noqon karin maamul iyo dawlad midna haddii aan sida ay tahay awoodda iyo awood qaybsiga ay leedahay haddaan aan la siin mudugna haddeed waxa weeye gobolka galgaduud cid wax u diidaysa male hadday wax gaara dhisanhayaan laakiin gobolka mudug waxa lagu dhisahaya markaan taladeedu aad bay uga soo hor jeedaa waxaana isleenahay dawladda federaalku arrintaasi aysan ku fududaan ha ka fiirsato ha ku soo celiso waxa labada gobol u dhaxeeya waxa galmudug ku dhismi karto waxa noqon kara wax shaqayn kara waxa noqon kara reer mudug ama reer gaalkacyo gobolka gaalkacyo inuu dumo oo ay burburto galmudug ma rabaan laakiin haddii lagu qasbo waa burburaysaa haddii lagu qasbo oo la keeno oo lagu kasbo oo ay dawladdu tiraahdo waa laga gudbi karaa mudug waa laga gudbi karaa hadday tiraahdo waxaan leenahay mudug lagama gudbi karo waxa weeye waxna waa sal waxna waa geed sare mudug waxa weeye salkii galmudug weeye salka haddii laga tagana geed laani meel ka bixi maayo ha lagu soo celiyo waxa ay ku shaqayn karto galmudug ama ay ku dhismi karto ama ay ku toosi karto waxaana leenahay dawladda federaalka waa aragnay dawladda federaalku waxa ay awal aad baan ugu soo dhaweynayna haddaan odayaasha dhaqanka galmudug nahay waa aragnay meesha ay wax marsiinayso iyo taladeeda waa aragnay waxaan leenahay ha ku soo celiso beelaha galmudug inay ka tashadaan ayaduna ay korjoogto ka noqoto oo wixii dawladnimo iyo federaalnimo ay ku leedahay ay dusha ka ilaaliso intaasaan leeyahay dadweynuhuna waa mahadsan yahay salaam bacdi waxaan beeshatan la isugu yimid oo laga hadlayaa oo dadkaana u soo bannaanbaxay xaquuqdii Soomaaliya waad ka warqabtaan si federaaleysiina oo maamul goboleedyo ah ayaa loo kala dhisay dadka reer galmudug waxaa maqan xaquuqdoodii ayaa maqan madaxweynahoodii cabasho ayaa yimid ay wakiisheen oo sida sharciga ay u doorteen awalna waxbaan tabanaynay waxaan u sheegaynaa dawladda uu hogaamiye Khayre iyo Farmaajo wax la soo dhoodhoobay inaanaan ka yeelayn oo aysan ugu caburin karin oo aysan noo keeni karin haddii wax ay soo dhoodhoobaan meeshii ay ku shaqayn lahayd waxa ay soo dhoodhoobeen ayaga ayaa laga rabaa ma yeelayna wax naloo soo dhoodhoobay waxaan dacwo u nahay qaramada madoobay iyo maamul goboleedyada dariska nala ah oo sideedoo kale ta dhisan waxaan rabnaa dawladda federaalka inaan wada shaqayno oo aan ka helna xaquuqdeena ayaan doonaynaa halkan waxaa jooga madaxweynihii galmudug oo dadkiisu ay wax tabanayeen oo shaqada ay si sharciga ah ay ugu idmadeen oo cabasho ah oo ka xanaaqsan waxa meesha ka dhacay odayaashii saxiixayaasha ahaa oo reer galmudug ay dirsadeen oo dad kale oo loo dhoodhoobay saxiixoodii la geliyey
waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka haddii aanna xaquuqdeedana helin waa ku celinayaa wax la soo dhoodhoobay in meeshii loo dhigi lahaa ayaa la rabaa ma la shaqaynayno ma la shaqayn doonno ma rabno wax qasab ah nalama qasbi karo haddaan reer mudug nahay dadkii waxaan nahay danta soomaaliyeed ilaa xilligii SYL xornimada keenay soomaali colaadeeda iyo dhibaatadeeda kama talinay wanaagga ayaan ka talinaa soomaali waxaan rabnaa daris wanaag waxaan rabnaa xaquuqdeena inaan helno waxaan rabnaa inaan si sharciya aan ku soconno dawlad nadaamsan oo canshuuraad loo nabadgelyo leh inaan helno ma doonayno wax naloo soo dhoodhoobay oo naloo soo mahduulay oo nin jeclaysigu qayrra wadaa qayre waxaan u sheegaynaa beesha caalamka waxaan u sheegaynaa qaramada midoobay u sheegaynaa ururada xuquuqda bini'aadamka u dooda u sheegaynaa Human Rights Amnesty International u sheegaynaa maamul goboleedyada u sheegaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed u sheegaynaa wasiirada u sheegaynaa ciddii wax garanaysa u sheegaynaa wax la soo dhoodhoobay oo na jeclaysiya in la ku dayahayo ku dayid ma yeelayno wixii madaxweynaheenu uu raalli ka yahay baan raalli ka nahay wajahadu u soconnaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا وحبوا وركسي بدين مايو كان وحكي سلام يا دمان نبضونا ذا قبل كمدو عقاشة سراكيشة هي وسيرة حلبانا ذا سيدو كل واحد سلام يا دنا يريد إسكوه هالشيء برامج كان سوي جدي سي إسكوه حلقانتي ويستعكتي مانتا قانك هل كان الأسبوع يميت أو ديال بدنا رقابة مثلا جوجان يكادي دونان أنا قاعد الله أفكار دنا يريد قبل كمدو دنا يريد دقمة إنتبه waxaan saaka soo banaan baxnay halkaan aan u joognaa wadooyinka gaalkacayna aan u mari doonaa annagoo taageerayna go'aanka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabnaa oo kale inaan halkaan ku muujino ummadda Soomaaliyeed ay maqraati ka noqoto Galmudug waxay ka kooban tahay mudug iyo galgaduud waxaan halkaas nooga muuqata in saamiga ugu badnaa ee mudug uu maqan yahay galgaduudna ay wadato waa sababta ugu kaliftay haddaan nahay dhalinyaradii gobolka u dhalatay mudug uu nooga maqan yahay ayaan u istaagnay halkaan waxaan mar kale bidhaaminaynaa guddiga doorashada iyo odayaasha dhaqanka ee soo xulay maamul sameynta Galmudug iyo dawladda Soomaaliya intaba waxaan rabnaa in dib loo fiiriyo saamiga ay lahayd gobolka mudug oo lahaa cuqaal badan baa iga dambaysa hawshan faahfaahin doonta lambar 1 horta waxaan taageeraynaa codka sharafta leh madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle go'aanka geesinimada loo qaatay midda kale waxaan ku cadifad ku muujinaynaa dhibaatada iyo barbareenka iyo lugooyada lagu wado gobolka mudug qaasatan gobolka mudug oo dhibaatada ay ku wado dowladda federaalka iyo inta ka xafiif qaadata waxaa keenaysa mudug iyo galgaduud waa labo gobol oo la isku dartay annaga Galmudug maanta 6 bilood ma ay jirto waxay jirtaa 15 sano sanad guuradeedu waa sanad guurada 15aad halkaan baan ka qaadnay waxaan geynay Dhuusamareeb waxaana lagu abaalguday keenta ka hara ma qaadano maamulka waxaa la rabaa markii waxa la isku darsaday oo laba gobol la isku darsatay waxa walba in ay cadaalad u qaybsato waxaa dhacday gobolka galgaduud inuu madaxweynihii qaatay madaxweyne ku-xigeenkii qaatay guddoomiyihii baarlamaanka qaatay guddoomiye ku-xigeenkii qaatay caasimadiina qaatay gurigii baarlamaankana qaatay warreemuhu mana qabataa annaga keenay kaan maana qabataa annaga waxaan rabnaa xaqa aan leenahay inaan helno inay dawladdu gurinta naga dayso inay afmaroojiska naga dayso mudug iyo galgaduud xaquuqda aan leenahay kala barina u helno madaxweynaha hadday helaan inaan baarlamaanka guddoomiyihiisa helno guddoomiyaha baarlamaanka hadday helaan
caasimadda hadday helaan inaan helno guriga baarlamaanka waa in la kala qaybsada xaq uma lihin inna la yidhaahdo keenta ee ka hara xaqeenna u doodaynaa xaqeenna u doodaynaa shucuurteenna aan muujinno ma isku raacna inaan xaqeenna u doodno ma isku raacna inaan xaqeenna u doodno ma isku raacna madaxweyne xaafin codkaan ku taageerno ma isku raacna madaxweyne xaafin aan taageerno allah ya ciise waa salaamantii gobolka mudug wuxuu ahaa ama magaaladan gaalkacyo waxay ahayd meeshii laga aasaasay galmudug magaceeda iyo asalkeedu uu ka yimid waxayna aasaaskii ka bacdi ay u gudbisay sida la sheegay cadaado dhuusamareeb nidaamka hadda aan dareemayno inuu ka shaqaynayana ma ahan sidii loogu talagalay xuquuqdii mudug waa maqan tahay dhabarkayga waxaa ku yaalla xuquuqda mudug waa in la helaa in xuquuqda mudug la helo waa muhiim weyn waa muhiim weyn dowladda federaalkaahi waa dowladdii Soomaaliyeed dadkay u dhaxaysaa gobolladay u dhaxaysaa ma ahan inay tixgeliso taageerayaal iyo dhinacyo kale iyo ujeeddada kaliya waxaa muhiim ah inay tixgeliso dadkii aasaaskeeda lahaa dadka gobolkan mudug ku jira xuquuqdooda in la helo waa muhiim weeye haddii aan xuquuqda la helin dowladduna si caadila aysan uga shaqayn waxaa imaanaysa dhibaato waxaa imaanaysa wax kale oo aan ku wanaagsanayn mujtamaca aan ku wanaagsanayn waxaan leeyahay dowladdu ha wanaajiso xuquuqda iyo sida gobollada saamiyadooda ha wanaajiso laba gobol weeye ilaa iyo hadda mudug wax ku magacaaban lama hayo oday dhaqameedkoodii Cusmaan Nuur Qayd waa ka meesha fadhiya waa ninkii ugu weynaa duqaytida ninkii ugu weynaa weeye oo xukumay gobolkan odayaashiisa ugu sarreeyey weeye nobody oo aan asaga ahayn oo wax matali karaa ma jiro marka dowladdu ha ka fiirsato arrimaha ay markaan ku jirto oo ay dhex walaaqayso dowladdu ha ka fiirsato cadaaladana ha fasho والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركم إذا أودياش يوحجرت ككون عندك ماذا عبود قبل كجلجدود أيها دليلي قاب كأيدولة فدرال كو وجه يسود اسمها دولة قبلت كجلمدوج يجونا شيء إن دولة دي هراء لقول السيد ماذا عداده قبل كجلجدود لوجود سيا حقي كلها هايين اسمها دولة قبلت كجلمدوج سلا ماذا الدولة دان أي جيران حلي معنا كهر تاجن بالقيب سجى كله يجين دولة قبلت كجلمدوج يجونا شيء in aysan marnaba ka hari doonin in la duusiyo qaybtii ay ku leeyihiin xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug qaar ka mid ah odayaashaas oo warbaahinta la hadlana waxay yiraahdeen waxaan ahay nabadoonka guud oo habar ciiso bedel jaamac shidane shirkan jaraa'id oo halkaan aan ku qabanayno waa cabasho waxaan ahay waqooyiga galgaduudeed beesha mareexaan baan nahay waxaan ka cabanaynaa niman wax naga dhaxeeyaan oo la yiraahdo boogaadeen iyo habar ciiso oo wax ka dhaxeeyaan baan cabashada ka cabanaynaa waxaan leenahay 2015kii waxaana dhacay xildhibaankii boogaadeen iyo waaxda ka soo jooday yaa beesha habar ciiso ku dulmay oo ku dhacay maamul samayntii Galmudug oo cadaado waxaan ugu dhacay xildhibaankii dawladda federaalka ah maantana waxaan ugu dhacaya oo Sharif Bililiqo maantana waxaan ugu dhacaya Faarax Cabdi Xasan oo xildhibaankii qaranka ah oo xildhibaankii guud oo waaxda haysta waxaan leenahay maganoga ma ahay waa wax naga dhaxeeya ka baryimayno waa wax naga dhaxeeya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka waa nala jooga wasiirka arrimaha gudaha oo dawladda federaalka waa nala jooga waxay u joogaan inay wax saxaan waxay u joogaan oo yiraahdaan afka kaga hadlaan Galmudug loo dhan yahay baan dhisaynaa
ma aha galmudug loo dhan yahay midda dhismaysa nimanka xildhibaanada oo mareexaan ma ahan dowlad galmudug oo loo dhan yahay inay dhisayaan waxay dhisayaan dowlad ay ummadii kale ku dulmiyayaan oo nin walba wiilkiisii ku qoranayo dadka aad ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha u tihiin baanan ka mid nahay isbaaray dhigteen oo brotokoolkiina waxay yidhaahdeen qabiilkaa lama gudbin karo ra'iisul wasaarahana uma tegi karaan wasiirka arrimaha gudahana uma tegi karaan waxaan idinka codsanaynaa isbaarada inaad naga qaadaan nimanku dhigteen noo yeertaan na dhegaysataan cabashadayada inaad dhegaysataan intaa waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha qodobka labaad madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waa madaxweynahayagii ummadda soomaaliyeed buu yahay madaxweyne ma diidanin waa ogol lahay wuxuu ku dhawaaqaa maalin walba cadaalad musuqmaasuqa lala dagaalamo koroshinka lala dagaalamo madaxweyne waaxdii meeshii adigu aad ka dhalatay baana dulmaysa koroshinka halkaa ka bilow inaad ka baabi'iso naga qabo madaxweyne waxa aan la dhawaaqaynaa waa dulmi nala dulmiyayo waxa aan la qaylinaynaa waa dulmi nala dulmiyayo haddii aan dulmigaa laga hortegin galmudug loo dhan yahay ma dhismayso wixii hore u qarribay baa maantana lagu wadaa horey wixii lagu qarribay 4 sano la soo dhaafay wixii lagu qarribay yaa maantana lagu wadaa shalay raggii waxa ku sameeyay baa maantana ku sameynaya ha laga qabto galmudug danu ma ahan ummadda danu ma ahan dhaqankay galaysa dhibaato imaanaysa colaad baa imaanaysa waa la isku leeyahay waa lagu kala tagaya war galmudug loo dhan yahay loo dhiso nin raaci u ahaan maaye anigoo ah Cabdulqaadir Muuse Warsame ahna odayaasha dhaqanka beesha Habar Ciiso cabasho waxaan halkan ka jeedinaynaa laba kalmadood oo mid tahay cabasho midna tahay codsi waxaan u hormarayaa cabashada iyo dadka aan ka cabanayno maamul u samaynta galmudug oo loo fadhiyo samayntii maamulkaas oo aan ka nahay qaybta waxaan nagala dhaxeeyaan waaxda Bohogaadeem oo mareexaan iyo Habar Ciiso waa laba garab oo wax ka dhaxeeyaan wax dhaxayntii naga dhaxaysay xildhibaanadii la xulayay iyo kuwii horay loo xulayba waxaa naga hor istaagay niman noo adeegsaday teetal dawladda federaalka kow waa Faarax Cabdi Xasan ninka la yiraahdo xildhibaan ka soo jeeda waaxdaas kuna abtirsada beesha Bohogaadeen wuxuu arintaas ku dhawaaqay kuna istaagay sidoo xildhibaankayaga u dhici lahaa una siin lahaa nin ka tirsan beeshiisa arintaas masan saamkeeda markuu bilaabay wuxuu xaraystay oo saxiixa u xaraystay adeerkiis ayadoo oo ujeedku yahay in uu nagu dhaco arintaas waa ka cabanaynaa Faarax Cabdi Xasan annaka waxba naga dhaxeeya waxa naga dhaxeeya asagu ma leh bariyana uguma ahin laakiin amatreshka maamul buu noo soo maray waa xildhibaankii qaran weeye talada iyo qaybta iyo qorshaha maanta socdo galmudug waaxda ninka ugu xirsaaran oo madaxweynuhu dalka uu xirsaartay ra'iisul wasaaruhu ku og yahay weeye ninkiina dulmigaas uu sameynaya waxaan codsanaynaa Faarax Cabdi Xasan oo ah xildhibaan qaran oo shala loo doortay asaga waxaan codsanaynaa inuu ku kacay qabyaalad aad u fool xun oo tii Soomaaliya la isaga midaynayay inuu ku kacay beesha dhexdeedina ka sameeyay nuguna dhacahayo waxaan codsanaynaa ra'iisul wasaaraha qaranka oo jooga Dhuusamareeb wasiirka arrimaha gudaha oo jooga Dhuusamareeb madaxweynaha qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kul dhamaantood waxaan codsanaynaa dulanka wixii wax ka qaban karaan wax ka qabtaan haddaan wax laga qaban dulankaas waxaan uga digaynaa oo sheegaynaa
inay kacayo xasaasiyad hadda aan jirin oo dadku ka dhaqan yahay inay kacayso dhaqanka xaggiisa inay ka kacayso marka dhaqanka baana dulmaya mas'uuliyadda xaggeeda inay ka kacayso mas'uuliyaddii baana ku dulmayaa annaku waxaan leenahay Soomaali baan nahay qof aan u afduubanahay ma jiro qayb baan leenahay qaybtayada aan leenahay waxaan rabnaa in aan qaybtayada helno baan rabnaa haddii nala dulmayana ninkaasaana dulmaye waxaan rabnaa qaranku inuu naga dhigo ninkana dulmaya la hadlo faraha laga qaado qaybtayada qof walba bashashankiisa galmudug oo qayb ahaaneed buu ku fadhiyaa Soomaalida kaayagiina nimanba isku dadbaya waxaan isugu dadbayaan waxa weeye xildhibaanka qaranka ay noo yihiin iyo inanka wax xarayso saxaaxa weeye taladuna waxaad moodaa inaysan ka go'aynin beerihii wax lahaa iyo dadkii la rabay in wax ka go'aan ee ay ka go'ayso nin saxiixa ah iyo ninka baarlamaanka qaran ah taas waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii dalka waxaana erayadiisii hore ku jiray musuqmaasuqa Soomaaliya inuu kala dirirayo qabyaaladda inuu la dirirayo waxaan leenahay annagoo beesha habar ciiso beesha bohogaadeena uu ka soo jeedo Soomaali ahaan hadday tahay midna dulmaysa ay tahay hanaga qabto beeshiisa marka hore beeshiisa marka hore ha qabto markaas la dareemi karaa markaan annagu na soo gaadho cadaaladiisu Soomaaliya markaas uu gudbi karaa hanaga qabto beeshiisa markaan saas leenahay asaga ma dhibaataynayno dad nicam ma ahin xukunkiisa kama horjeedno laakiin dadka uu adeegsaday dulanku inagu wadaan baan ka horjeednaa dulanka naga qabto ra'iisul wasaaruhu dulanka naga qabto sababaha la sameeyay waxa ka mid ah in baratikolka ra'iisul wasaaraha uu u tagay Faarax Cabdi Xasan iyo xildhibaano kale iyo dad dalaaliin ah oo xildhibaankii hore oo bohogaadan uu ku jiro inay dhaheen beesha siyaasigeeda iyo odageeda iyo ninkeeda dhalinyarada ah iyo haweenkeeda iyo culumadeeda hal qof oo la gudbin karo oo ra'iisul wasaaraha dantii uu leeyahay u sheegi kara lama arko reerkaas haddaanaan idin gudbin lama gudbin karo bay dhaheen waa la og yahay dadkuna wuu og yahay haddaan nahay beesha habar ciise kalsoonidii waa kala noqonnay faarax cabdi xasan naguma matalo dowladda federaalka kalsoonidii waa kala noqonnay war ma kala noqoteen waa kala noqonnay wax zaa'id aanu ku dari mahayo inta odayaashu sheegeen waxaan ku darayaa cabashada odayaashu sheegeen oo aan qabno dadka ama xildhibaan ha noqoto ama senator ha noqoto ama ha noqoto saxiixe ama ha noqoto odaynimo doona waxa meesha lagu hayo oo maamulka ah annaga horta naguma ay matala waxaysan noogu matalin maamulkii hore oo 2015 galmudug loo sameeyay yay nagu dulmiyeen oo wixii naga dhaxeeyay ay ayagu la istiqlaaleen haddeer markii halkan la yimidna seen wax u qaybsanaa iyo qofkeen wax siinaynaa iyo qofkeen ka tagaynaa midna iyadoon la dhihin baa waxaa loo keensaday musharaxiin iyo saxiixayaal iyo dadkoodii bay u keensadeen waa niman isku jifaa weey annaga naguma matala xildhibaan federaal hadduu yahay uusan nagu matalin hadduu senator yahay uusan nagu matalin saxiixa hadduu yahayna naguma matala arrinta meesha galmudug ka socota ilaahayna wuxuu yiri وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولو كان ذا قربى تدك أمرada oo hadda wadanka xukuma cadaalad baa laga rabaa inay umada u sameeyaan waxa anagu aan raadinayno waxa aan lahayn ma aha waa waxaan xaquuq u leenahay zulmiguna xadiidkii nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam inna dhulma dhulumaatun zulmigu waa mugdi weyn waxa weeye dhulmiga marka in
madaxdu naga qabataan rabnaa oo waxaan codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha ha u horeeyo ra'iisul wasaaruhu ha ku xigo madaxweynuhu ha ku xigo dawladda waa rabnaa dawladdayadii weeye mucaarad hadda ka horna kumaanaan ahayn haddana kuma yihin laakiin waxaan rabnaa arrintaas iyada ah oo galmudug hadda maamulkeeda loogu dhisayo inay faragelin ku sameeyaan waaxdaas bah ogaadeen oo meeshaas ka jirta inay saxiixa hadday noqoto iyo hadday nabadoon noqoto iyo hadday meesha wax lagu sameynayo inay waaxdaas soo saaraan xaquuqdayadana ay naga siiyaan baan ka rabnaa shahaban ciiso odayaasheedii iyo culummadeedii iyo waxgaradkeeda haddaan nahay faarax cabdi xasan kalsooni waa kala noqonnay qaybta iyo qorshaha iyo teeladu naga dhaxaysaan ka cabanaynaa waxa aan kaga cabanaynaana waa wax jira oo sax ah ma aha inaan eedaynayno ma aha inaan dulmiyayno ma aha inaan raacinayno wax dadkaas aan ayaga xagooda ka imaan arrin walaalahaya ka timid oo dhacda ah weeye waxaan ka cabanaynaa qofka bini aadanka ama islaamka ah wixii dhib ku ah inuu ama soo bandhigo ama bulshada la wadaago xaq buu u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay inuu ka hadlo wuxuu xaq u leeyahay waxa uu doonayo oo uu leeyahay inuu raadsado ma ahan arrintan arrin shakhsi iyo labo iyo wax la mid ah arrin aan ku eedaynayna maaha waxaan ku eedaynaynaa waaxda bahogaadeen guud ahaan baan ugu eedaynaynaa waa arrin nooga timid hadday xildhibaan leedahay hadday nabadoon leedahay hadday saxiixa leedahay hadday mas-uuliyiin ka sarraysa leedahay arrintaas eedeeda waxaa iskale waaxda bahogaadeen oo wax naga dhexeeyaan waxaan leeyahay walaalaan nahay waa wada dhalannay wax qayb baa naga dhexaysa walaalayaalow ka waantooba oo ka tanaasula inaad caadaysataan ama mar walba ay eed iyo tabasha ka timaado dadka wax kala dhaxeeyaan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa kulan la qaatay guddigii loo xil saaray maxaabiistii ka baxsaday xabsiga Xamar Abukaate Xasan Xaaji oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay kulankii dhaxmaray guddiga loo xil saaray maxaabiistii ka fakaday ama markaasi ka baxsaday xabsiga Xamar ee magaalada Muqdisho. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan kormeer shaqo ku tagay xabsiga dhexe waxaan la kulmay kusimaha taliyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha kale hogaamaha kala duwan waxaan kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa shaqada ciidamada usluubta ay wadaan ay ka mid tahay ilaalinta dadka xabsiga ku jiro xuquuqdooda iyo daryeelkooda iyo ilaalinta guud ahaan xabsiyada dalka ka jiro runtii warbixino fara badan baa ay isiiyeen waxaan kale aan kormeeray xabsiga dhex dadka ku xiran oo xabsiga ku jiro cuntada la siinayo iyo tababarada iyo tacliinta ay dugsiyada ay wax ku baranayaan runtii waxaa iga muuqday shaqo wanaagsan dhinaca tababarada iyo xirfadsiinta iyo iskuulaadka meesha ka jiro oo runtii aan u arkay in manhajkii wasaaradda tacliinta ay soo rogtay ay haystaan dugsiyada qiibaha kala duwan aan rajaynayno dadka ku xiran markay ay ka soo baxaan dad oo wax bartay maadooyin kala duwan runtii ay u diyaar garoowayaan sidii ay bulshada ay dib uga laaban lahaayeen ayagoo wax bartay waxaan dareensanaa in xabsiga dhexa uu yahay xabsi qadiima waqti hore la dhisay oo u baahan dayactir runtii dayactir badan buu u baahan yahay maadaama xabsigan quruun u dhisanaa dhinaca kastaba markaad ka eegto waxaad dareemaysaa inuu waktigii la dayactiri lahaa guud ahaan uu u baahan yahay waxaan ku boorinayaa muxsiniinta oo soomaalida dalka joogo oo ilaahay maalka siiyey maadaama
dowladdii hadda qarashaad weyn oo hadda lagu dayactiray loo haynin in xabsigan la dayactiro. ciidamadana waxay leeyihiin runtii dad injineera oo ka shaqeeya arrintaas waxyaabaha loo baahnaan karo oo waxyaabo oo yaryar oo ay ku qaban karaan naftooda. waan haynaa dadkii shaqada qaban lahaa laakiin waxaa loo baahan yahay waxyaabihii kale oo dhaqaalaha ku baxayay oo xabsigaas in lagu hagaajiyo loo baahnaa. dadka muxsiniinta doonaya inay wax ka qabtaan wasaaradda iyo taliska way la soo xiriiri karaan sidii wax looga qaban lahaa. taas ahmiyadeeda waxaa way maadaama xabsiga uu xabsi weyn oo horeyna ma aragtay uu ahaa xabsigii ugu weynaa dalka waqti horena la dhisay. waxaa khatar ah marka xabsigaas haddii oo dayactirkiisa la dhammaystirin inay khatar noqon karto sidii maxbuus dadka oo xabsiga ku jira ay ugu noolaan lahaayeen oo laga yaababa in hataa baxsi imaan karo maadaama derbigii uu doqooway. marka taasna maanta waan soo indhendhaynay. si kale guud ahaan talada guud ahaan xabsiga shaqadiisa fiican baa u socota. waxaa kale oo ayadana meesha ku jirtay guddi dhowaan la saaray oo arrimaha xabsiyada guud ahaan baarayay khaas ahaan dad la sheegay inay ka fakadeen xabsiga. guddigaas shaqadooda way wadaan habeen iyo maalin ma seexanayaan ilaa ay ka gungaaraan arrintaas say u dhacday. anigana xukuumad ahaan waxaan u qaadanay arrintaas inay tahay arrin khatarkeeda leh laga qaado tallaabadii ugu wanaagsaneed oo sharciga waafaqsan. cid allaa ciddii arrintaas haddii ay noqoto fududaysay mise ma ahe shaqadaas gudan weysay haddii lagu ogaado sharcigaa la horgeynaya. dowladda soomaaliyeedna waxay lamaane qaadaysaa dadka xabsiyada ku jiro inay xuquuqdoodan helaan oo meeshii looga tirigalayna lagu haayo. cid kalena mar damba aan xabsi ka baxsanin. lamaane qaadkaasaan haynaa waan ku dadaalaynaa wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba in aan noqono cid allaa ciddii sharciga la geeyey oo lasoo xukumay ilaa oo wakhtigooda ka dhammaado fursad u helin inay sharcigaas ay ka baxsadaan. marka runtii taliyaasha aad baan ugu adkaynay inay shaqadooda qabsadaan waxayna diyaar u yihiin shaqadooda inay qabsadaan. waxaana rajaynaynaa insha allahu xabsiyadeena dalka inay noqdaan xabsiya caalami ah sidaad u aragteen xabsiga weyn oo MBCC loo yaqaano oo ex-control ka dhisan. xabsiyada kale dalkana inaan hagaajino waxaa la farayaa saraakiisha meel kasta ay joogaan dalka in xabsiyada dalka waajibkooda ka gutaan. way garanayaan waajibkooda xuquuqda maxaabiistan ilaaliyaan maxaabiistasna ay hayaan oo ilaa oo xukunkooda ka dhammaado oo sharciga la horgeeyo sidii sharciga qabo. marka aad iyo aad ay ugu bogaadinaya shaqada ay qabteen. meelaha yaryaroo dhimana oo qaldaadka ka jirana waxaan rajaynaynaa insha allahu xukuumad ahaan iyo siyaasad ahaanba inaan u saxno waxyaabihii shaqooyinkooda u fududayn lahayn oo saraakiisha insha allahu inaan ku caawino marka dib u dhiska dalka iyo horumarka dalkana inay ka qayb qaataan maadaama ciidamada asluubta ay yihiin ciidankii afaraad oo ciidankii saddexaad oo maaragtay ciidamada qalabka sida ayagoo weliba loo baahan yahay markasta ammaanka guud dalkana ay u taagnaadaan khaas ahaan ammaanka garsoorka dalka oo ay ku lamaanan yihiin markas. marka aad baan idinku mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo intii kale ka qayb qaatay. guddigan oo aad sheegtay in la sameeyey oo ku aadan maxaabiista ay ka baxsatay xabsiga hawshooda goorma ay soo gabagoobi doonaan oo dad baa isweydiinaya xilliga guddigan ay hawshooda fulin ay soo dhammaan doonto waa imisa guddiga la magacaabay 7 xubnood bay ka kooban yihiin. shaqadooda way bilaaween dadka maanta aan soo kormeeray ay ku jiraan. shaqadooda way wataan aad bay u shaqaynayaan habeen iyo maalin. waxaa way dhinaca kasta ka fiirinayaan baaritaanka
laakiin waxay hadda qaban hayaan iyo meeshay u joogto ka hor dhici maayo waa arrin baaris socoto wey laakiin waxaad ogsaanay waxaan ku adkaynay in maaragtay baarista la soo dedejiyo cid alla ciddii maaragtay arrintaas qeyb ka aan sharciga la horkeeno marka arrintaas si fiican ay u socotaa waxaana rajaynaynaa insha allah in lagu kalsoonaado shaqada socoto dowlad ahaan aan u wadno iyo ciidamada usluub ahaan wasaaradda cadaaladda insha allah jawaab saxana waa laga keeni doonaa jawaabtaasna wixii keento sharciga la hor keeni doonaa xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27 ayaa booqasho ku tagay deegaano ka tirsan degmada Buulabardi halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada macawisleyda maxamed cabdulqaadir oo ahaa sargaalkii hogaaminayay booqashadaani iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada macawisleyda ayaa goobta warbaahinta kula hadlay macawisley asaaskeedii koobaad buruurtii jalka dhaxlo ahay in muddo markuu socday ayaguna hadda way ku nasteen annaga waa ku nasanay cadowgiina waa ku jabay ninka maalkiisa naftiisa cadowgu u baqdo xayaato kale buu noqdaa diinta islaamka ba diidanba ilmahaada naagtaada maalkaada hadda uga tagtid qof kasta oo Soomaaliya waxaan kula dardaarmayaa nafteeda iyo maalkeeda iyo dadkeeda in cadow ka dhacsato intaas kadib waxay gaari doontaa dawladnimo taas waa midaas waxa la beeyo aaska macawisley oo Buulaburtan waxigeeda waxa hadda sii marayaa ilaa shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo meelo kale waxa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqa intii macawisley ahaan isku aasaastay oo ku dayashadaas muujisay aad iyo aad ay u mahadsan tahay waxa kale oo ku baaqa kuwa hadda aanan isaasaasino guriyooda la kor degan yahay inay ku daysadaan ninka gurigiisa xuraysan ilmihiisa aanan naagta iyo maalkiisa aanan ka cishan cid uga celinaysa male laakiin ninkii iska celiyo isku daya dawladana garab uu kala asna xornimo dareema dibna qaranka uga mid noqonaya dawladda Soomaaliya waxaan ka codsana meel kasta oo howlaha noocaas ka socdaan inay gacan ku siiso ayada gacan weyn ku dayashadaasna macawisley wada gurmadkaasna dawladda geedan ka codsana inay ka gaarsiiso meel kasta oo ka jiro waxa waaye anagoo maaragtay dalkan ayadoo laga shabaab maalinta uu bilowday iyo maanta intii ka dhaxaydaba marnaba heshiis lama noqon maalinta aan ku bilowga koobaad aan bilaabaynay annaga markii dalkii iyo dadkii la canshuura niman ma taqaanaa nabadiidu ay ku soo baxeen annagu waan ka gadoonnay waan ka caroonnay dagaalaa la galnay dawladdu maalinkaas waxaa u sokayday aan dagaalaynay beledweynena waa joogtay mahadayna waa joogtay maalintaas kini badanaa jahmadeen anigaas ii jeeda anoo saxiixan ee aabahay layga saxiixay aabahay inta la qaaday meel la yiraahdo tarda la geeyay waa layga saxiixay dawlad anoo toog shabaab ugu qoran ayaa dawladdu waxay soo qabatay meesha la yiraahdo Buulaburdi soo qabatay maalintaas walba nin saxiixan ahaa rag badan ay ballansanaa ila joogay raggaas ayaa ma taqaanaa raggii ayaa kacdoonka subaxdaas raggii aan walba isla shaqaynayno marba raadkayga duugaan ku hoyana ku hergelaan u habeen kasta aan ku hoyana raggii baan isla kacnay meel yiraahdo inay goobta koobaad ku galnay dhimashada meedkooda iyo madaxdooda keenay dhibkooda badan waxaan soo dhacnay alaabtoodii waxaan keenay meedkoodii maalintaas iyo maanta inta ka dhaxayda macawisley hadda waxa sheegana shabeeladan oo raga aan horta nagu xigtay macawisley markaan ahayna anagu dalkan waan ka saarnay ilaa aadaya bal xuduudda geeyay muqkuri dalkii kadib dhulkii waa xoogaa waa la soo qabsaday muqkuriya laga baxay waa la soo qabsaday teeraankii wuu soo gaabtay annaga hadda ilaa saacadan waxaan ku mintidnaa joognaa talisidii aan ka kicino koobaad ilaa saacadan gacanta lama soo saaro shabeellada waa laga sheegana macawisley taliyay macawisley ah kuwa sheegana ilaahay baa ma hadda iskale meel kasta magacaas anaga nagu baxay oo anigaas aan bilaabay aniga hadda aan idin hor taaganahay oo magacaas aan hadda idin hor taaganahay oo meel kasta dalka meel kasta laga waa idinkaga mahad celinayaa waxaan rajaynayaa tilaabadii aad dalkan u bilowdeen tilaabadii aad dalkan ka bilowdeen oo ah in cadowga la iska dhacsho inay hirgasho maanta macawisley meel walba magac macawisley yaala waxaan rabnaa marka Soomaaliya idilna inaan u sheegnaa rabnaa in la iskugu ixtiraamo magaca iyo ma taqaana iyo asalkiisa waxaan rabnaa cid walba ku dayatay qudwadan wanaagsan ama tilaabadan wanaagsan oo ugu mahad celinayna laakiin waxaan aniga maanta ku faraxsanahay inaan joogo goobtii magaca macawisley oo ka bilowday deegaankan ayuu ka bilowday isaga oo ceelbacad
wuxuu haddana uu mar labaad uu ka aasaasay dhankaas iyo waqooyigaas oo Moqokori iyo Maxaasi Soonahaas Shabeellada Dhexe Galgaduud halkaas ay Soomaaliyo idil hadda iskugu daysatay waana ku faraxsanahay in maanta oo dhul saaki la hadda intaan socodkeena aan ku jirnay ilaa habeenkii midooba waxa absina aan ka qabno ma jirin dhulkan waana dhul ay idinka xoreysan waxaad ku xoreysana waxay ahayd waa go'aan iyo xoolihiina maanta way bad qabaan idinkana waxaad ku nooshiin si xayya marka aad iyo aad idinkaga mahad celinaya Soomaaliyo idil waxaan u sheegayaa inay tahay wadada lagu bixin kara cadowga sida iyaga u dhaqmaan in loo dhaqmo ragga macawisle magacaas u baxay oo ninkii aasaaskii koowaad lahay sidoo ii sheegay cilmi goore asagoo xoolihiisa diiday ayay shabaab waxay ku xukumeen dil markay ku xukumeena aabiis laga saxiixo liira wiilkada aan dilana wada kale u furan ma jiro inuu dagaalamo ahna ilaa maantadan uu nool yahay cadowguna wala dagaalamay marka aad iyo aad idinkaga mahad celinaya kun ka badan waana mahadsantiin waana in badan insha Allah taala wasla joogi doona madaxdana waxaan rajaynayaa inuu gaari doono codkiina iyo maqalkiina iyo muuqaalkiina waxaad u baahan tihiin garab iyo gaashaan insha Allah taala ugu dambeyn daawadayaal saaxiibayaal haddii uu rabbi yiraahdo qodobka ugu dambeeyay ee barnaamijka ku soo qatibi doono waxa uu noqonayaa maxaa ka hortaagan ama maxay tahay sababta ka hortaagan in dawladda Soomaaliya ay soo bandhigto dawladdii ay sheegtay in ay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay Ex Control Afgooye warbixin dheer oo ku saabsan arrimahaasi waxa inoo diyaariyay akhrin doona haddii uu rabbi yiraahdo Maxamed Cabdulqaadir Silver hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaan wali wax jawaab ka bixin baaritaanada ay sheegtay in ay ku hayso dal shisheeye oo ka dambeeyay qaraxii dhawaan ka dhacay Muqdisho ee ay ku dhinteen shacabka ku dhow 100 ruux muddo 7 ah ayaa laga joogaa kadib markii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ay shaacisay in madaxda qaranka ay u gudbiyaan warbixin bilow ah oo ku saabsan qaraxii 28 December ee sanadkii tagay ka dhacay Ex Control Afgooye oo qorshihiisa ay lahaayeen dal shisheeye inkastoo NISA aynan magacaabin dalka qorshahaasi qaraxa ka dambeeyay ma jirto ilaa iyo hadda wax cadeymo rasmi ah oo ay soo bixisay hay-adda iyo dawladda oo ku aadan dalka ku lugta lahaa qaraxaasi iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay ka sugaysan NISA iyo dawladda in ay soo bandhigaan dalka ku lugta lahaa qaraxaasi kaasi oo noqon doona markii ugu horeysay oo la shaaciyo in dal shisheeye uu qayb ka ahaa qaraxyada ka dhaca Soomaaliya NISA ayaa waxa ay ka dalbatay sirdoonka ilaa 4 dal oo kala shaqeeya baaritaanka qaraxaasi oo ay ku dhinteen dad ku dhow 100 ruux lama oga ilaa iyo hadda intuu qaadan karo baaritaanka NISA ay wado dhacdadan ayaa ibaanaysa iyadoo la xasuusanayo baaritaano hore loo saaray guddi dhowr ah oo aan la ogeyn meel ay jaanay cirib dhigeen waxaana ka mid ahaa dhacdooyinkaasi qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo sidoo kale dilkii Almas Elman loogu geystay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho oo dawladdu hore ay u sheegtay in ay baaritaano ku hayso dadna ay u qabatay falkaasi balse ilaa iyo hadda aysan soo bandhigin hase ahaatee baaritaankan ayaa ka duwan kuwa hore maadaama ay tahay arrin dibadda ah oo tuhno gelinaya dalal shisheeye lagana doonayo inay NISA cadayso oo ay soo bandhigto dalka ka dambeeyay qaraxii ka dhacay Ex Control Afgooye haddii aanan la soo bandhigin waxa ay calaamad su'aal gelinaysaa mas'uuliyadda iyo maqaamkeeda hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA warka ka soo baxay NISA waxaa si weyn uga soo horjeestay mucaaradka dawladda oo ku tilmaanay inuu yahay mid lagu maran habaabinayo mas'uuliyadda iyo in lagu raali geliyo daneeyaal shisheeye oo qayb ka loolanka awoodeed ee ka dhaxeeya wadamada danaha istiraatijiyadeed ka leh gobolka gaar ahaan Soomaaliya al-shabaab ayaa bayaan ay soo saareen saacado kadib warkii NISA waxa ay sheegteen qaraxasi mas'uuliyadooda in ay ka dambeeyeen oo ay la beegsadeen muwaadiniin u dhashay dalka Turkiga iyo ciidamada Soomaaliya inkastoo sheegashada al-shabaab ay timid 2 maalin kadib qaraxii ka dhacay Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho afhayeenka u hadlay al-shabaab Cali Dheere oo ka hadlayay qaraxaasi ayaa waxa uu cadeeyay inay ka xun yihiin dadka shacabka ee ku dhintay qaraxaasi kana tacsiyanayaan taasi oo ahayd arrin aan hore looga baran al-shabaab ka gadaal qaraxyo badan oo ka dhacay Soomaaliya oo ay ka mid ahayeen qaraxii 14 Oktoobar 2017 oo lagu laayay in ka badan 1,000 ruux dadka oo darasa arrimaha siyaasadda ayaa dhowr arrimood isugu xiraya sida khilaafka u dhaxeeya dalalka khaliijka iyo loolanka juqraafiga siyaasadda ee gobolka oo ay Soomaaliya meel muhiim ah kaga jirto iyo in uu ka dhigi karo meel ay isugu hardamaan dalalka Sacuudiga Imaaraadka Carabta oo dhinaca iyo Qatar iyo Turkiga oo iskaashanaya isla markaasna taageero xooggan siiya dawladda federaalka ee Soomaaliya NISA
weli ma aysan soo bandhigin xogta qaraxaasi iyo waddanka ka dambeeyey balse waxaa laga dhirsugayaa ma waxay qaadi doontaa waddooyinkii hore ee dowladdu ay ku shaaciso in ay waddo baaritaano shilal dhacay balse aan la soo bandhigin mase waddankaasi bannaanka ayuu imaan doonaa guud ahaan saaxiibayaal daawadayaal intaasi aan jeclahay inaan kusoo ogaanado barnaamijka xogta wararka ee galmudug t v barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay cabdiqaadir maxamed silver kaamiradu wuxuu ahaa faysal xaaji farsamadii cabdicasiis maxamed shiil intaynu barnaamijkan lacayna ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo